gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal Salaadiin aqoonyahan culimaha haween iyo marti sharaf ballaadhan ayaa waxay ka qayb galeen xaflad ballaadhan oo loo qabtay furitaanka xadaanada kaafi barbaarinta ubadka oo noqonaysa xadaana nooceedu ku cusub yahay magaalada Boorama iyagoo halkaasi carruurta yaryar loogu diyaariyay cashar iyo qalabkii ugu dambeeyay carruurtu ay ku ciyaari lahayd kaafi keche xarunta barbaarinta ubadka ayaa laga hirgeliyay bariga magaalada Boorama ayaan Maxamed Yuusuf iyo Nagaad Axmed Meedhane oo ah asaasayaasha xadaanada kaafi walkaas ugu horeyntii ka hadlay ayaa waxay sharaxeen xadaanada kaafi waxa si rasmi ah loo furay 22kii bishii 7 2018 xadaanada kaafi waxay ku soo biiri doontaa waxbarashada gobolkeena Awdal taasoo bixin doonta program cashar iyo ciyaar wada socda cashar iyo ciyaar markaan leeyahay waxbarashadan bilownay maaha waxbarasho laga rabo ilmaha firjira ama shanjira inuu kitaabo waaweyn akhriyo laakiin waxa laga rabaa tubta nolosha weeyaan waxa la bari doonaa tarbiyada islaamka waxa la bari doonaa dhaqanka wanaagsan waxa la bari doonaa qaabka hal abuurka iyo maskax kobcinta xadaanada waxyaabaha loo furay waxa kamid ah inay helaan xorriyad ay ku ciyaaraan carruurtu ciyaartu waxa weeyaan mid qaaliya oo ilmaha maskaxdiisa dhista jirkiisa dhista caafimaadkiisana qaybka midda labaad ahdaafta xadaanada kaafi loo furay ayaa ah inaan helno awlaad ku barbaartay diinta islaamka xadaanadeedu waa ciyaar iyo cashar ciyaar iyo cashar waxaan uga jeedno waa fahmi doontaa markaad qalabka aragtaan iyo alaabtaan keenay waad ka dheehan doontaan insha Allah xadaanada kaafi waxay balan qaadaysaa inay soo saari doonto hadduu Ilaahay qadaro nala garab qabto ciyaar tayo leh insha Allah muddo badan ciyaar wala soo dhigaynay waa soo fahamnay ciyaar waxay yihiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan soo saarno ciyaar mustawahooga laga yaabo insha Allah bidnillah kariim sidoo kale marti sharafti kala duwaneed ka soo qayb galay furitaanka xadaanada kaafi ee barbaarinta ubadka oo iyana halkaasi ka hadlay ayaa yidhi tarbiyadu inankii inantuba intaanay iskuursan inay bilaabanto bimacnaa caa'ilad mutadayina caa'ilad wanaagsan caa'ilad la yaqaano in inankiyo inantaba dadkii hore la iskaga dooni jiray laakiin daimika waynu naqaanaa Facebook baynu iska guursanaa taasi qiimo kuma fadhido marka ugu horeysa waxaan u hambaliyaynayaa xadaanadan kaafi ayaan u hambaliyaynayaa waxa wanaagsan ay sameysteen adduunyadana waxa ugu qaalisan waxa weeyaan waa waxbarasho cilmi weeyaan marka waxa weeyaan waa kii maartaan quraanka Ilaahay ku yiri nabiga wa qul rabbi sidni ilma Ilaahay waxa tiraahdaa cilmi ii kordhi marka waa sidaas oo tarbiyada iyo tarbiyada horeysa taariinta ilmuhu waxa la geynayaa markuu yar aqliyaysta ee uu 6 jir 5 jir iyo wixii ka sareeyo gaadho ayay waxbarashadii u bilaabmaysaa laakiin marxaladani waa marxalad tarbiya iyo toosin weeyaan waan rajaynayaa xadaanadan aad leedihiin insha Allah taala saasa ka fiican aad ka dhigtaan tan rajaynayaa dadaal badan baa idin rajaynayaa mustaqbal fiican baa idin rajaynayaa تعرضنا ما كان دونا إن شاء الله تعالى. وحرطة ومهم ويان قاردريو المه وبرنا يسوع عياريا. أدبان وماننا ونسودوينا ونندعينا إنه لهي بركيو كيتي جاي فرن إنه لهي نقل قرب قبته يجنا أيش هالسبير كوجي ويوم معلمه وشيء سبير هذه جروبهان. إحنا لنا والدين welcome كسودو هذا كافي kindergarten وحويان حرمتاس عروته اللي نفري والدين تكعم فرنايا كسودويننا. waxaan ugu dariyo kaliya muxuu awlaad loo keenayo ilaahay isku sakhro ducada loo duceeyna Allah ha aqbalo aadan faarax maxamuud gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal walkaas ugu dambeyntii ka hadlay ayaa tilmaamay marka dhammaan inaga waxa naga rabaa maadaama fursad layna siiyay inaynu ka faa'iideysano gaar ahaan dadka deegaanka xaafadahan halkan degan u dhow inay ka faa'iideystaan waa muhiim midda labaad xadaanadu dabcan sala soo sheegay waxbarasho culus oo weyn bixin mayso laakiin wax ka fiican bay bixinaysaa tarbiyada waxbarashada waxa ka muhiimsan tarbiyada ka muhiimsan kaafi keche xarunta barbaarinta ubadka ayaa noqonaysa xadaanada ay si weyn u tabayeen shacabka magaalada Boorama iyadoo ubadka yaryar laga dhisi doono maskaxda sidoo kale lagu tarbiyadeyn doono diinta islaamka isla markaasna waxaa halkaas ay ka heli doonaan ubadka yaryar qalabkii ugu dambeeyay ay ku ciyaari lahaayeen maxamed حساس معشد برا تلفزيون كاريال عاصمة قبل كأوضل إبورما.